آثار الإيمان بالقدر قفكم مركو قدر كالرميسيه رادت كان تضبضا يمرهن تضبضا أبو قوصانيا توه الرئيسوي يعني قدر كوحة وكمديها وحيابها ومهم سن قفك ويري إلى العمل والنشاط بإثبات ويقين قفك إنه عمل فله وأدداله سوق كالسوني يقين إلهي سكوقه وما أرانيه سيدنا مدين النبي وأصحابته وقلت جواب الدورة قال دوحا إلهي قدره وانسك فريسا إلهي بأني قوحل بي قدره وانسك فريسا تام أرانيه قدر كسيدنا بمركو قفكو رميسيه هاي عمل دينادي يمد دنيا بدقاق بو سمينيا بدها كلا لغا غوسنيا waxa weeye qofku markuu qadarka garanayo yaarifu qadra nafsi wuxuu garanayaa qadarka naftiisa marka isma weyneynayo leena wuxuu og yahay wixii ilaahay u qadaray inaan waxba ka ogeyn koor muu dhimanaya muxuu calfanaya halku maraya bal diifnimadiisu garanaya mustaqbalkiisa waxba ka booga qaaliye islaamiye mid kasto is xariifiya wuxuu ku qalcayo oo ogsoon yahay qofkan mu'minka ah inaanu qofkii mar haduu mustaqbalkiisa waxba ka sharxi kari laayahay iyo wuxuu calfan doono in taadkiisu yariya miraha saddexaad laga goosanayo faa'iidada waxa weeye annahu yadrudu alqalaq inda fawat alburad aw husul almakruh marka wuxuu doonayo waayo ama wuxuu diidayo uu ku dhaco ma warwarayaba isba dhibayo tee wuxuu ogsahay wixii ilaahay u calfay inuu helay ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وحي مصيبة دعا إلهي با قدر سادرات قلق إيو وايدة وحان لا يدهد وأيو محو وحان يقول عباد دي شق على ذا يدد كان إيمانك العين قدر كإن الرمايا يقضي على كثير من الأمراض الفتاكة في المجتمعات مجتمع أما بلشوين كعالم كعذر هذا قلبي وحبدا دي له وحيابات دوية وحكم إذا رمين تقدرك سدا دراديد با انانيدي iyo wixii la oran jiray kibirki iyo wixii la oran jiray xasadki te qofka qadarka rumaysan ama umada qadarka rumaysan ma dhaxdhaca hadiya jeero dadka qadarka si fiican ugu qanacsani xasadka uma dhaqaaqaan oo wuxuu og yahay qadu waxa sidee inuu ilaahay ka hor imanayo oo ilaahay ilaahay kan maxaad waxa uu siisay arin awood aqoon aduun ilaahay inuu la muransan yahay buu is ogaanaya kadibna wuxuu leeyahay arrimaha ilaahay u daa marka cudurka noocaasna وداوي الرومين تقدر وحيابها آثارتي مدها لغا قوسانيا كايمانيا waxa kamida يثبت في القلوب الشجاعة قلبك geesinimo ku abuura rumaynta qadarku oo hadiya jeer waa farqiga u dhaxeeya qofka gaalka ah iyo qofka muuminka ah meel walba uu galaya hawl wal oo ilaahay ku adoonsaday uu maraya talaabo kasto qaadaya haday jihaad tahay haday dacwad tahay wax walba uu ku talaabsanaya wuxuu og yahay wuxuu ilaahay u qadaray inaanu gafayn idan waa geesi isku kalsoon oo la bahasha nafihi marun bay leedahay la takhruju marratayn laba jeer ma baxdo maba is hawlaya dhamac kasto dhaxmaraya laano kalsooni buu qabaayo qadarkiisa soo aamisay waa farqiga u dhaxeeya gaalkiyo muuminka midna geesi ka dhigay midna furay waxa uu kamid yahay rumaynta qadarku min akbar al-awaamil عوامل الاستقامة للعبد وخاصة في معاملته مع الآخرين مركو ضدك هذه الشير للقميو وحلا يداهضو وقادن واقع إيا أمكاقا إيا هبطيسيقا وحلا يداه مليه هدي عيد وحكاقي مادان وبلايا كقد عضو وحو أود الليه إنو رهضو وحن إلهي بكل يبقى قدريه تكار إنكار قبها نينا السبب ونوضيه وروابان اسكاكا عفيه با تهيلو وحوقي كل يبقى إنانو قفين كان والله صادر عيون oo sababtiisu mu noqday wuxuu leeyahay kullayba kumu gafaan hadda isagoo naftiisana duleeyeen xaga maaragtay gaaliya qof xunaan isu duleeyeen haddana wuxuu go'aan ku qaadanayaa kullayba waxa hebelkaaga dhacay ee kaaga yimi waa wax aan baaqdeen buu ahaa mar haddii aanu baaqdeen dee aadna ajri ka doono iskaba caf qadarku marka rumayntiisu waxa كمذا مرها لقى قوسنا دائم الاستقامة بالله الاستعانة بالله يتوكل ويفعل الأسباب مركا إلهي سنو تلصارنا يسقنا ودداليا وحيابها سوا وحيابها وفائدين يرمين تلرمي قدرك